بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro haddii gooraale waxaan idinku baraarujiyaa waddankan inuu yeelo wax badan aan adduunka oolin. taariikhihii hore ayaan weli wadnaa. magaalada balcad markan waa hoos baa la iskugu degaandegayaa. balcad berigii la odhan jiray buur bishaaro waxaa yimid ninka la yidhaahdo maniligii labaad ee ahaa boqorkii etoobiya ka talinaya. wuxuu soo kaxaystay ciidamo fara badan oo ciidamadii etoobiyaanka ah. wuxuu hore u soo kaxaystay markuu soo marayay deegaanka shabeelle dhulka la yidhaahdo reer mustaxiil iyo reer qallaafadad ah ayuu hore u soo kaxaystay. waxaweye taariikhdu waxba ma qariso. taariikhdu wixii dhacay oo tegey siday ahaayeen un baan u wadaa, wax kale ma sheegayo, si loo saxo waxa soo socda iyo waxa la jooga. waayo haddii kale wax lagu saxo la heli maayo. annagoo ku tegi doonno taariikhdii 1991 annagoo ku tegi doonno. bal iminka horta dib aan u laabanno, gadaal turxaan bixin aan samayno, deegaanada aan eegno, sidii la ahaa aan eegno. balcad ilaa halka la yidhaahdo bambaciid lamaba deganeen, walaa minil ka hortiisa xataa lama deganeen. deegaan wuxuu ahaa aada u wanaagsan in la dego, aada ugu wanaagsan, oo kayn fiican leh, oo biyihii webiga leh, neecaw fiican leh, cimilo aada u wanaagsan leh. laakiin waxaa laga degi weeye meel golo libaax buu ahaa. libaax baa joogay. libaaxyadana libaax baa ugu sii darnaa ee garab cadde la dhihi jiray. garab cadde libaaxa la yidhaahdo xoolihii soo mara, dadkii soo mara, kii isku daya inuu dego meesha wuxuu dhan wuu cuni jiray, wuu dili jiray, wuu leyn jiray. ilaahay ha u naxariista waxaa soo baxay halgamaa weyn ee degaankii deegaan ka dhigay ee libaaxina dilay. allah u naxariistee barow cumar jiis yaa la odhan jiray oo deegaanka u dhashay. balcad markaasaa deegaan lagu bilaabay in la dego, ilaa banciid, ilaa dhulkan, ilaa soco gololey sii dhaaf, ilaa raaxoy. markaasaa la degay. lama degeen haddii uusan ahaan lahayn odagaasi, allah u naxariisto, khayrna allah siiyo. waayo degaan buu ka dhigay. waa meel wanaagsan oo biyihii leh, oo dhulbeereed ku habboon, oo xoolihii ku habboon, oo aan gendi iyo gol aanba lahayn oo xoolihii cunaya. marka aan u laabanna marka ninkii la yidhaha manilig inuu yimid balcad waa markay magaalo noqotay. wuxuu ka degay meesha la yidhaahdo buur bishaaro oo ah halka ay iminka ku taalo warshadda balcad, isagoo raadinaya baadigoob ugu maqan ee ku marmarsiyoonaya xoolo ee balqiso lahaan jirtay. ayaan taariikhdanada ka soo helay buu yidhi in halkan albaabkii uu ku yaalla laga geli lahaa. wuxuu soo kaxaystay ciidamo fara badan, tigre, dhulkaa shabeellahoo soo maray, reer mustaxiil iyo reer qallaafo ayuu dad ka soo kaxaystay oo afkii kugula hadlaya. barow cumar jiis allah u naxariistay ayaa kacay, abaabul sameeyey. qowmiyadaha meesha dega wuu u bandhigay ninkan gumaysaha sidii la yskaga qaban lahaa.
qowmiyadda soo raacday ee taageertay waa qowmiyadda jowhari deegaankaa degta shiidle loo yaqaana shiidle iyo moobleen niman la yidhaahdo ayaa isku biirsaday halgankii lagula dagaalamayay gumaysihii xabashiga ahaa amxaarka ahaa ee minilig tuug ahaa miniligii labaad way ku guulaysteen hoggaaminta waxaa lahaa allah u naxariistay barow cumarkiis baa lahaa hoggaaminta furindhaha taariikhda dib uu raac wax siyaada oo lagu biiriyey ma jirto wax laga dhimi karana male taariikhda wax lagu biirin karana male sideedu un bay ahaani barow gurmud wuxuu uga yimid ilaa iyo halka la yidhaahdo raaxooy jidda cadayga garsaale saarsaare doondheere kaysane ilaa iyo harajeeran iyo hublaale halka la yidhaahdo yaa gurmud ugu yimid oo dad mutadawiciina ugu yimaadeen dhankaa kalena waxaa gurmud ugu yimid xawaadley sabuun buule axmed cigow moyke ilaa iyo buundo baraaw ayaa laga yimid gurmud si amxaarkan looga kiciyo meesha hadhowba dad baa odhan doona shiidle lama halgamin gumaysihii xabashiga amxaarka ahaa kii talyaaniga iska daya kii amxaaradu oo la halgamay oo halganka wuxuu garab taagnaa barow cumar jiis buu garab taagnaa halgankiisii oo ahaa walaalayaalow ninkan gumaysaha aan iska kicino waa kiciyeen waa ka guulaysteen waa laga kiciyey gumaysihii meesha waxaa meeshii soo hadhay wixii la baabi'in karo oo la dili karo waa la dilay nololna qaar baa lagu qabtay oo beerihii ay ku qodanayeen waayo maxaabiis dagaal bay noqdeen maxaabiis dagaalna sida la doonaa laga yeelaa adduunkao dhan bay ka jirtaa tii adduunka ka jirta unbay raaceenoo maxaabiis dagaal ay ka dhigeen xuquuqdoodii way siiyeen raashin waa la siiyey meel ay seexdaan wayna shaqaynayeen beerahaasi ka shaqaynayeen laakiin xilliga markuu bedelmay waa la qarameeyey nin walba ninkii markaas uu la joogay ayuu maaragtay laabtirsiimo noqday sidaa weeye soomaalida waa dad furfuran dimuqraadiyadna la sheegayaba annagaa bilownay soomaali baa bilowday meel kasta ay joogtaba waayahay halgankii halkaa markuu joogo aan ka gudubno marka hantidii xaggee ku dhammaatay lagama sugin ninka la yidhaahdo minilig two lagama sugin ilaa uu albaabkii ka helo lagama sugin waxyaalo badan waxaa jira maaragtay u baahan laakiin waxaan weli baadhis igu socota albaabkaasi sidaanu heli lahayn soomaaliya dhallinyaroy albaabkaas sidaanu heli lahayn ayaa baadhis igu socota waana heli doonnaa insha allah albaabkaas kol haddaan helno waa nimco ilaahay maaragtay keenay waa mahadsantihiin dhegaysiga wanaagsan aad ii dhegaysateen dhallinyaro ku baraaruga dhulkii wax weyn baa yaala sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu